wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa safar shaqo uu ku joogay magaalada Oslo waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Oslo. mudane Beyle wasiirka arrimaha dibadda ayaa ugu horreyn ka warbixiyay socdaalkiisa uu ku yimid dalkan. horta halkan waxaan u nishalay baan imi waxaan u nimi waxa lagu jiraa dal dhisma lagu jiraa dal dhismo ayaa lagu jiraa dalkeeni baaba iyo burbur buu yahay baaba ayaa burburka markaa cidii nala dhis lahayd ayaa taladeeda la hayaa oo lagu jiraa Minister of Foreign Affairs kana shaqadiisu waxa weeyaan inuu xiriirada soo xidho inuu soo xidho weeyaan waxaaniga taayir raacda Foreign Affairs iyo maalgashiga ayaa isku jira marka inaan adduunka wareego oo aan la soo sheekeeyo oo aan uga warramo dalka xaalkiisu yahay ayaa shaqada ay tahay marka halkan waxaan u nimi dawladda reer Norway laba cisho oo aad iyo aad u ciriiriya ayaa shirar ku yihiin waxaan ka wada hadlaynaa waxa weeyaan waxyaalaha dalka Norway uu qabto imika qabanayo wadankeena ka qabanayo oo ay ka mid tahay dalka Soomaaliya burburay wuxuu u baahan yahay shaqaalahaas haddaan mushaar la siinaa way iska tagayaan marka maanta mushaarooyinka inta badan waxa bixiya Norway oo bixisa waxyaalo kale oo fara badan oo security amniga ku saabsanna way bixiyaan waxa weeye dal aad iyo aad inoogu jajaban marka wuxuu noqday dalalka aan doonayna inay shaqaalooyinka horta marka horeysan inuu mahadnaqnaa ay tahay inaan nimaadno saasaan horta ayaan u nimi anigu Minister of Foreign Affairs baan ahay waxay hortaala inaan Ministry of Foreign Affairs waa wajigii nationka weeyaan waa meesha laga soo galay laga baxay weeyaan in markaan adduunyada la fadhin horta in kursigeeni banaanaad lagu fadhiisto lagu fadhiisto calanka la daba fadhiisto in wax ku oola laga yiraahdo naadiyada la isku geemanayo in arrimaheena adduunka la gaarsiiyo in wixii inaga xun adduunka si fiican loogu sheego in wixii laynoo igmaday si fiican uga warrano cilaaqaadka adduunyada inaan wanaajisano inaan adduunka ka dhaadhicino inaan soo toosnay inaan doonayno inaan adduunyada ka mid noqono productive member of society in the world inaan noqono taasay shaqadeedu tahay international community-gu aad iyo aad weyn ugu heelan yahay haddaan gacmaha la qabanno waxaa laga yaabaa inaan xanuunku inaga boo ayaa laga yaabaa waa kaasoo meediadii bay nala joogtaa meediadu very active weeyaan meediada inagu aan leenahay Soomaalidu markaa website-ka ka akhrisan wixii ka dhacay xamar maanta iyo wixii meel kale ka dhacayba gobolada kala duwan website-ka ka akhrisan anigu waxaan dadka cusub ee dawladda ku soo biiray waxaan ka shaqeynayay African Development Bank 25 sano ilaa 26 sano marka waan ka waraya dalka iyo arrimihiisa halkay marayaano maadaama aan ka shaqeeyo wadan bank ka shaqeeyo horumarka Afrika kulliba marka halkay Soomaalidu marayaan waan ka warayay waan tagi jiray laakiin se maanta waxaan dareemay in loo baahan yahay inaan shaqada meel yar joojiyo aan wadankii tago ayaan damcay farkari fool ma dhaqdo laakiin haddana waxaan isii maybe you can do something maana way sidii marka shaqadii horta saasaan uga imi waxaanan damacsanahay inaan joogo ilaa iyo intaan isleeyahay wax ma qaban karaysid inaan joogo baan damcay dad fara badan oo sidayda ayna way kuwan marka fadhi aan uga noqon kolba dawladda joogta baan anu ku talini ta joogta waa nimayo aan kala rag iyo dumar baan kala dambayno aan kala dambayno hala kala dambeeyo hadii la kala dambeey waayo ila maalin boqof uma meesha joogay oo every day motion baa jirada la iska day waayo halkeenu ku soconaa Soomaaliya I don't understand where we are going Soomaaliya wada socotaan cisho walba telefoon baad ku hadashaan dawladda maanta joogta xumaan iyo samaan hala taageero su'aalahan hala weydiiyo
sida lagu wado safar baad ku socotaa waad socdaalaysaa sida aad sheegtayna dalka Turkiga ku socotaa ma jirtaa dalal kale oo Yurub aad sii marisid mise mudan waxa aad si toos ah u tagaysaa magaalada Muqdisho afta Turkiga ma Muqdisho tagay hadii la yiraahdo Turkiga maalin baan joogayaa shirar baa ka socdaan iyagana ka qayb galayo oo shirarka horumarka adduunka oo la isdhaafsanayo afkaar kala goongoniya wadan waliba halku marayo inta kadib waxaan tagayaa Muqdisho dalkan waxa degan 36 inta aad la kulantay waa intii caaqilada hogaanka jaalidaha Soomaaliyeed maanta kugula kulmay golahan 36 kaas 16 iyo tira ka badan waxay degan yihiin caasimadda ma laga yaabaa mustaqbalka inta aad jagada haysan dib ugu soo noqoto si jaaliyadii oo sodomeeye kuna ay jaceelkooda iyo wanaagooda ay ku tusaan mas'uuliyadda aad hayso sacab iyo si wada jiran lagu soo dhaweeyo Soomaalnimo aad iyo aad baan u jecelahay inaan wadankan ku soo noqdo gaar ahaan wadanadan Nordic la isku yiraahdo waxa weeyaan wadankan Norway iyo Sweden iyo Denmark iyo xataa Finland markaad ku darto waxa weeyaan wadano aad iyo aad u caawiya Afrika xasan saciid xasan laasta SNTV Norway